Kusoo dhawaada cashirkeena caafimaadka. Maanta waxaan diiradda saari doonaa neefsiinta ama waxa loo yaqaano CPR. Markii aad la kulanto shil, fadlan si degan u qiimee xaaladda oo dhan adigoo eegaya hareerahaaga. Istaabka labaad aad samaynayso waxay tahay inaad tijaabiso dareenka bukaanka. Haddii aad wax dareem aad ka weyso, fadlan wac gargaarka degdega ah adigoo wacayo 911. Intaas kadib waxaad samaynaysaa inaad tijaabo aad ku samayso bukaanka neefsigiisa adigoo dhegta u raaricinayo dhinaca sankiisa. Haddii aad ka weyso markaa wax neef ah, tallaabada xigta aad qaadi doontaa waxay tahay inaad ku bilowdo neefsiin ama soo celinta neefta dhacday. Hannaankani waxa uu gaar u yahay dadka da'doodu ka sarreyso 12. Waxaad samaynaysaa inaad si degan gacantaada u saarto feeraha, gacanta kaleetana aad si taxaddar leh aad u saarto isla gacantaada horeeto. Sidaas ayaad hoos ugu bushgaraynaysaa ama hoos ugu riixaysaa ilaa iyo tiro 30 jeer ah. Tirada 30 jeer markii aad gaarto, waxaad samaynaysaa inaad si toos ah aad afka ama sanka midkood neef uga siido adigoo isticmaalayo afka af ama afka san. Labadaas hannaan midkood markaad samaynayso afka af ama afka san, midka aad isticmaalaysid mahane midka kale waa inaad xirtaa. Tusaale haddii afka isticmaalaysid waa inaad sanka aad xirtaa, waayo waxaa dhici karta neefta aad siiday inay si toos ah sanka ugu soo laabato. Haddana isla waddadii ayaad ku celinaysaa 30 jeer ayaa feeraha ka bushgaraynaysaa hoos ugu riixaysaa. Isla 30 markaa u tiriso, haddana waxaad ku celinaysaa isla qaabkii oo afka af aad isticmaalaysay ama afka san aad isticmaalaysay ilaa uu dhibano si toos ah neefta uga qaato oo miirkiisa u soo noqdo. Maanta cashirkeena intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa.